Tani waa sheekada Jian iyo Patricia. Jian iyo Patricia waa lamaane aad isugu eg kuwaas oo soo jiitay dhammaan indhaha caalamka. Warbaahinta caalamka ayaa baahisay muuqaalada Jian iyo Patricia oo ah lamaane aad isugu eg marka loo eego lamaanayaasha dunida. Lamaanahan ayaa isaga eg dhanka socodka saanqaadka iyo suurad kastaba, waxaana intaasi u sii dheer inay yihiin lamaane ku fiican dhanka romantiga, farxadda iyo isfahamka nolosha. Walow ay yihiin kuwo curyaan ah oo daruufo badan soo wada maray. Jian iyo Patricia hadda waxay ciyaarayaan ciyaar hidda dhaqameed u ah taas oo u eg ciyaarta Soomaalidu ciyaarto ee loo yaqaano waalada. Patricia waxay tiri aniga ayaa qabtay inta badan shaqooyinka guriga, walow uu Jian iga caawiyo shaqooyinka qaar. Waa lamaane aad isugu faraxsan, waxaana ka muuqda jacayl iyo farxad. Patricia oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri markaan dhameeyay dugsiga sare ee iskuulka waxaan damcay inaan jacayl sameysto, hase ahaatee waxaa iga diiday oo dhibaato aan kala kulmay bulshada. Waxayna igu dhaheen uma qalantid inaad xiriir yeelato waayo waxaa tahay gabar curyaan ah. Aniga taasi ima niyad jabin oo waxaan isku dayay inaan xiriir sameysto, mar walbana dadaalkayga waan sii laba jibaarayay. Intaas kadib waxaan la xiriiray dhakhtarka lafaha, wuxuuna ii sheegay in laf dhabartayda ay ku jirto laf qaloocisay dhabarkayga oo dhan, taas oo ilaa yaraanteedii dhibaatooyin badan ii geysatay. Balse hadda laftaas waxay ka mid noqotay lafahayga oo waxay noqotay mid dabiici ah. Hadda waxaan helay Jian, waa jacaylkayga dhabta ah, mana doonayo inaan ka fogaado oo nolosha oo dhan asiga ayay agtiisa taallaa. Aniga iyo Jian waan isku waqti dhammaysan doonaa ayay hadalkeeda kusoo koobtay. Fadlan daawade, haddii aad ka heshay muuqaalkan sii share garay, like tana raaci. Waxaa kale oon kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto YouTube channelkeena adigoo intaas nagu dhiirigelinaya. Fadlan YouTube channelkeena subscribe inoo saar adigoo mahadsan. Waad ku mahadsantihiin inta yar ee aad muuqaalkan daawateen.